isku hayeen ay kala heshiiyeen oo ay isla ogaayeen dowladihii Soomaaliya ee ka horreeyay dowladda iminka ee Muqdisho ka jirta wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa dhawaan waraysi BBC-da uu laanta af Carbeedka siiyay wuxuu ku sheegay heshiiska Berbera inay wax ka ogeyd dowladdii hore ee Soomaaliya iyo inay aqoonsan yihiin wadajirka Soomaaliya. تمت بتفاهمات واضحة مع الحكومات الصومالية السابقة، والتفاهمات هذه كانت واضحة بأن الموقف السياسي هو دعم الصومال الواحد. نحن ما عندنا قنصلية في صومالي لاند، ما عندنا سفارة. arrinta dekada berbera waxa ay ku dhacday isfahan cad oo aan la yeelanay dawladihii hore ee Soomaaliya. Isfahanadaasna waxay ahaayeen kuwa cadcad, waxa ay hoos imaanayeen taageerada Soomaaliya oo mid ah inaga qonsuliyad kuma lihin Somaliland, safaarad kuma lihin Somaliland, xiriirna lama lihin. Iska badaaye waxaan kaalin fududayn ah ku lahayn inaan kulanno u qabanno madaxda Soomaalida. Waxay ku kulmeen Abu Dhabi iyo Dubai. Kaalintayadu waxay ku koobneed fududayn. Isfahanadu waxay ku qotomeen haddii aan aqoonsanahay siyaasadda Soomaali mid ah inaysan naga reebaynin inaan ka shaqeyno dhinacyada horumarinta, gargaarka iyo kaalmada inaan Somaliland ka sameeyno إنسانية أو إغاثية وما إلى ذلك في Somaliland. kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta oo BBC-da uu warramayay hadalladiisii durba dood ayay ka dhaliyeen gudaha Somaliland. shalayna magaalada Hargeysa waxaa shir jira ku qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro oo si kulul arrinta uga hadlay. qofkiigu waxa weeye in khiyaamo qaran ka dhacday halkaas madaxweynaha shacbigiisa khiyaameeyay oo ka qariyay madaxweyne Muuse wuxuu wareejintii ku wareejiyay isagoo in heshiiska ay saxeexeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalku marka labadoodaba runtii waxay noogu muuqataa in qarankan khiyaameeyeen ay mutaysteena in lagu qaado khiyaamo qaran siinayna maxkamad la keeno. Muuse waxa soo jeediyay laba arrimood midkood inay u bannaan tahay inuu sicilo shacbigana uu weydiisto saamaxaad doorashooyin cusub madaxweynaha ku dhawaaqo iyo in maamuska xayuun lagu sameeyo xilka laga qaado. cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd markii heshiisyadan ay socdeen saldhigga Berbera iyo KDB waliba inkastoo ka saldhiggaad ka baxday laakiin KDB waxa lagu saxeexay lagu ansixiyay baarlamaanka aqlabiyadii weyn in Anwar Qarqaash wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta hadda dhageysto waxa uu yiri tafaahum baanu kala lahayn dowladii hore ee Soomaaliya ma oran wax baanu kala saxeexnay. Ahmed marnaba heshiis lama keenin marka baarlamaanka ahaa iyo kadib toona heshiis lama keenin waxa la heshiiska wala soo wada heshiiskii la makana xukuumaddu baarlamaanka uma soo bandhigin shacbiga uma soo bandhigin isaguna wuxuu sheegay Qarqaash hadalkiisa si fiican u dhuuxdo in ittifaaqiyada ay kala yeesheen dowladda Soomaaliland ma aqoonsanin buu yiri marka in Soomaaliland ma aqoonsanin uu yiri oo safaarad kuma lihin qonsuliyadna kuma lihin taasina wax rasmi ah laakiin tani ma u agtay adigoo markii hore la socday inaad ka faa'iideysanayso mucaaradkan ma Ahmedow markii horena aad eegto saxaafadda markasta waxa la heshiisyadii hal la keeno oo dadka loo soo bandhigo heshiisyada kama aan soo horjeedin horumarka ma aan soo horjeedin markasta waxaan ku celinaynaa heshiisyadii hal la keeno wixii loo qarinayna maanta cadaadeen marka idinku ma ogeyn oo la iska qariyay aniguna ma ogi anigu ra'iisul baarlamaanka ma ogi heshiis rasmi ah oo ma keenin hada wixii la keenay markii gacanta loo taagayay aqlabiyada lagu ansixiyay maxay ahayd markii DB oo kale waxa la keenay waxay ahaayeen fotokobiyo waxaana la yiri waa la soo wada heshiiskii markaaba waa la diiday heshiiska dhuqulkii asliga ah la keenay marka ma xog kala haysaa mise waraysigaasi Anwar Qarqaash bad ayaad ku go'aan qaadanaysaa wixii xoog kalena waanu doonaynaa oo ku daba jira cid baan u xil saari doonaa laakiin dawladdu matala warka rasmiga ahayna waa ka soo saaray wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro Hargeysa uu warramayay wariyaha BBC-da Axmed Siciige haddaba dooda galabtay waxa martin noogu ah Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo iminka igu wariyay stuudiyaha London oo aan filayo inuu mowduucan si aad uga warhayo khadka Hargeysana waxa aanu kula xiriirnay Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo ambassador Cabdullaahi Aadan Kongo oo isna khadka kaga jira Dubai istaga Imaaraadka Carabta waa rug cadaad diblomaasiyadda iyo siyaasadda Soomaalida muddo ku soo jiray iyo suxufi Cabdiraxmaan Xadaana oo isna stuudiyaha iminka nala fadhiya oo arrimahan dhinaca Carabta iyo Soomaalida iyo falanqeyntooda ka eegi doona khayarta aad iyo aad baad mahadsantihiin wasiir iyo Dr. Kongo iyo saaxiibkay isna stuudiyaha nala fadhiya
waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo marka ugu horeysa khilaafkan horta isutoga imaaraadka carabta iyo arrimahan heshiisyadan iyo ka dhashaysiiba dekada iyo saldhigan militariga berbera iyo waad maqlayseen mucaaradu dhaliyey somalilan lafahanteeda maaragtay waxaa ka taagan arrimahan waxaaba ay dhex mareen federaalkii iyo imaaraadkii iyo annagii somalilan ahaa meesha maaragtay kumaba jirnaba wasiirkan ku bilaabaya dr sacad adigaan filaya inaad xoogaal u tahay oo aan filayo heshiisyadii iyo wadahadaladii iyo dhinac kastoo ay noqoto mar walba inaad hargeysiyo dubay u kala dhexayn jirtay aad ula socotay eedahan soo baxay sida kuwan ugu dambeeyey ama dadka caadiga qabaan ama mucaaradka uu qabo siba wadani oo kale maxaad dadka ku qancin lahayd oo aad kaga jawaabi lahayd bismi illaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horreya waxaan doonaya halka inaan ka caddeeyo in ay meesha jiraan 3 waddan waa Soomaaliya, Somaliland iyo Imaaraadka. Qodobka labaad waxa weeye heshiisyadii ay wada galeen Imaaraadka iyo Somaliland. Soomaaliya daraf kamay ahayn. In Imaaraadku tafaahum ula lahaa dowladda Soomaaliya iyo in kale hadalkaasu marnaba yacni muu ahayn mid golaha yimi oo maxaan idhahday oo jiray wixii de iyagu laba waddanoo dee xora waxa iyagu mataqaanaa ay ku heshiiyaan iyagay jirtaa laakiin wixii ay ku heshiiyeen iyagu marna xidhiidh lama lahayn heshiiskii ay wada galeen Somaliland iyo Imaaraadku waa run Imaaraadku kuma laha safaarad Somaliland qunsuliyadna kuma laha laakiin xidhiidh buu leeyahay oo xidhiidhka de waxa waa astaamaha heshiisyada la wada saxeexday arrinka ku saabsan khiyaamada qaran ee lagu soo eedeeyay madaxweynihii hore iyo madaxweynaha iminkaba arrinkaas madaxweynaha iminka wuxuu yiri iscasil runtii arrinkaas waa arrin meel ka dhaca anu saanu arko waayo heshiiska Imaaraadka lala galay golaha baarlamaanka la keenay waa laga munaaqasheeyay gacan baa loo taagay waxa la kala saxdeena waa wixii baarlamaanka la hor keenay oo arkay wax kale ma aan jirin haddii tuhun yacni hadda iyadoo soo galay heshiis ABC leh oo cad ma ahayn buu yiri wuxuu ahaa buu yiri warqado photocopy waad maqlaysaa waraysiis Cabdiraxmaan Ciro waraqada photocopy waxa ku qoran waraaqada waa kala jaad waraaqada dabcan de marka loo qaybiyo 82 xubnood de waa la soo photocopy gareynaya laakiin waxa ku qoran qodobada ku qoran halka ay ku qoraa ee baarlamaanka la hor keenay ay munaaqasheeyeen dirseen gacanta u taageen waa wixii la kala saxday wax kale ma saxiixana wuxuu leeyahay 2 meelood buu saxiixu leeyahay meel waxa la Somaliland meel Imaaraad kale meel saddexaad oo Soomaaliya u banaan ba cid kale u banaan ma jirto xaqiiqduna de waxa weeye marka laga hadlayo dekada berbera dekada berbera wuxuu baa hoos timaada dawladda Somaliland iyo dawlad kale oo ka talisa oo lagala tashanaya runtii ma jirto waa tawaagarta dad baa maaragtay waxay leeyihiin haddii qoladii federaalku ay yiraahdeen annagii Imaaraadku hoostaanu ka ogolaanay hadda Somaliland ay leedahay wax shuqulo ay ku leeyihiin lama arko weli dadku ma dharagsana Imaaraadkii waxay leeyihiin dawladdii federaalkaanu wax u sheegnay oo aanu maaragtay arrinta ka talagelinay idinku waxaad leedahay heshiiskii annaga iyo Somaliland buu na dhex maray annaga Imaaraadkuna dhex maray marka halkaas weli waxbaan kala cadayn dhinaca warkiisu uusan cadayn waa dhinaca hortaan Maxamed ku sheegay xaqiiqda ayaan ku sheegay halkan runtii waxaan ku hayaa warqadii labada sax ay ku yeeleen sadoo arki doonto halka laba sax baad ku yeeleen saddex sax kuma yaalaan meel Soomaaliya ku qoranteena de ma jirto marka arrinka heshiiska marka laga hadlayo dhex maray Somaliland iyo Imaaraadka Soomaaliya daraf kama ahayn waxay la taqaana waxay shaqo ku lahaydna ma jirin kumana yeelan karto runtii waatahay marka wasiir dawlaha Imaaraadka waa maqlaysay wuxuu lahaa waa ka talagelinay waana ogaayeen xukuumadda federaalku idinku marna ma idin sheegeen inay dhinaca kale oo federaalka iyo ay wax arrintiina ku saabsan iyo arrinta berbera iyo ay kala hadleen anigu arrinkan waxaan ku jiray bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii maalin kaliya
oo miiska la keenay oo lasoo hadal qaaday oo wax laga yidhi tafaahum ay wada leeyihiin iyo fasax laga qaatay Soomaaliya marnaba ma jirin taana ku cadeynaya waa tahay Dr. Cabdullaahi Kongo khadka kaga jira Imaaraadka waad maqlaysay Dr. Sacad waad maqlaysay madaxii mucaaradka Somaliland sidii uu hadlayay fasiraadihii la bixiyay adiguna waxaan filayaa nin cabqari oo la socda tahay arrimahan oo maaragtay marka federaalkii Imaaraadkii iyo Somaliland dawladdii aad fiiriso wasiirkii uu hadlayay maxaad halkaas kaaga soo baxay waxa ii muuqata aniga in kaafiya ka dheeri ay Soomaali ku jirto Imaaraadkana canaanan maayo waxaan canaanayaa waxa weeyaan Soomaalida khaasatan Somaliland 27 sano imka maraysa lama ictiraafin waa sax intaasay mashaariicii ay wadatay waxaan filayay cala laqal ilaa waa la wada hadlayaa in la isu yar roonaado oo ilaa waxa weeye marka hadaad tirado jawiga kadba yatbacak eygaaga gaasaysiisi uu ku dooraqdeeyo waxay ila tahay inaan mustaqbalka ana ay aad iyo inoogu xun tahay ummadda Soomaalina aanay u danahayn tan uu leeyahay wasiirku uu leeyahay arinta waxa la saxday marka Maarskii sanadkii hore tigay maxaa maanta soo celiya arinta hadii dawladdu mesela ilaahay federaalku annaga mas'uul ka ah may markii hore bay yiraahdaan joojiyay safaarad beeshu ku leeyahay wax walba may mar hore may rays gareeyaan arinta maanta la rays gareynayo waxa ii muuqataan wax weeyaan square one baynu ku jiraa waxan iyo intifaaqyadani waxa hore ka bax mustaqbalkii ummadda shalay sida wanaagsan la isugu yimi ay ahayd qaliima shimaali uu mubaadarada qaatay oo ilaa markaas waan joogay ana joogay markaa hay ahaa oo waftiga la jiray waxa la isku aadan Cabdullaahi Cusmaan iyo ra'iisul wasaarihi labadu waxay yiraahdeen wariyaadan reer Soomaaliland adeerayaal inana aanu maalo wuxuuna siinaya Talyaanigu inkuna iska joogo oo aan sameyn bal aadan cadda wuxuu sameeyay mashruuca nimka islaahay waba laga yaabay inuu wax noqdo wuxuu waraareeyo 5 sano soo socotana aan saakalahan hadhowtana confederal ugu nimaadno xiriir guud marka mushkilada maanta ay hayso wax weyn Soomaalida waxaynu nahay xalqadii aynu ka soo guuray iyo muxuu ahaa liintii maxaa meeshii la xuqayay in weli ku jira wax weeyaan arintu way Soomaaliland way ka weyntahay waxay ahayd in arinteena lagu dhameeyo wada hadal oo hadalkii la wado oo wixii Soomaaliland ay tabanayso ee hore u soo maray ay garoonka soo dhigto laana wax weeyaan ninkii shalay keenay dawladdiisii ee marqura iska dhiimay ee loogu jawaabay waxaan carabti jizaa sinimar oo ah wax tahmiish wax weeyaan marginalization lagu sameeyay oo inta aan waliba isdiibinay markuu arkay inuu hog galay cid kasta oo kamid ah Soomaaliland ama military ahaadeen ama minister ha ahaadeen ama parliamentarian ha ahaadeen ama arday ha ahaadeen ama ha